xogo hoose oo VOA heshay ayaa sheegaya in maanta uu ka soo jawaabay dalabkaasi taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo amniga qaranka Fahad Yaasiin oo dalbaday in la fariisiyo golaha amniga qaranka si warbixin dhameystiran uu uga siiyo dilka Ikraam. qoraal arrintan ku saabsan oo uu diray xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa sidoo kale waxaa lala socodsiiyay wasiirka amniga iyo gudoomiyaha baarlamaanka. inkastoo ra'iisul wasaaruhu isagu codsaday in xogtaasi loo soo gudbiyo ma cadda sida uu uga jawaabi doono dalabka taliyaha NISA ee ah in golaha amniga qaranka oo wada jooga ay hay'addu warbixin ka siiso afduubka iyo dilka Ikraam. haddaba sidee u muuqataa jawaabta taliyaha NISA ee ku aadan dalabkii ra'iisul wasaaraha ay ahayd in 48 saac gudahood uu jawaab uga soo siiyo dhameystiran qaabkii uu u dhacay dilkii iyo afduubkii loo geystay Ikraam Tahliil. waxaan su'aashaasi weydiiyay Xuseen Macalin oo madax ka ah Machadka Hiraal ee daraasaadka amniga. waa maasantahay Falastiin. jawaabtaas waxay tahay in uu ra'iisul wasaare Roble codsigiisa ama dalabkii uu dalbay ahayd inuu dhaqso kusoo jawaabo in uu rabo in uu ka meermeereysto oo uu abuuro iskahorimaad madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ama asagii madaxweynaha isla ogaadaan haddii rabto arrintan ama mid keligiis uu iskaga horkeenaya ha noqoto in uu ka rarayo mas-uuliyaddii ra'iisul wasaaraha oo uu geynayo guddiga amniga qaranka oo ay u dambeysay in uu aqal rasmiga qabto wakti aada u dheer. madaxweynaha waktigiisu dhamaadana hadda arrimaha amniga uu baarlamaanka hortiisa isaga wareejiyey in uu ra'iisul wasaaruhu. NISA ayaa hore warbixin ay u soo saartay ku sheegtay in Ikraam Tahliil ay u gacan gashay Al-Shabaab oo markii dambena ay dileen. hooyada Ikraam ayaa se diiday warbixinta NISA iyadoo ku tilmaantay been cad oo aan geed loogu soo gaban. Xuseen Macalin ayaan mar kale weydiiyay jawaab sidee ah ayaa laga filan karaa ra'iisul wasaare Roble inuu ka bixiyo dalabkan. Abay ma garanayo laakiin aniga waxay la tahay inuu uga jawaabo si degdeg ah inuu ra'iisul wasaaruhu uusan entertain gareynin arrintan cusub oo ila meereysada ah oo uu hawsha kusoo gelinayo madaxweynihii waktigiisa dhamaaday iyo laguna cover upna loogu sameynayo eedi laysku haystay oo ahayd gabadhii iyo qaabkii ay u dhimatay haddiiba dhimatana. hay-adda NISA ayaa maraysa waqti aada u adag iyadoo dalkuna uu ku jiro doorasho.